waxaan rabaa inaan su'aal idinka weydiiyo dhacdooyin badan oo ka dhaco wadanka dhexdeeda ama adduunyadaba kuwaas oo ku aadan dhanka waalidiinta iyo ilmahooda. Waalidka marka uu ilmo dhalo waxaa ku jirto cabsiyo badan oo ku aadan cunugaagii ama sidii la rabo noqon waaya, cunugaaga ama qalad mujtamaca ka soo horjeeda galaa ama faciisa ama dadka markaas ku xeereysan ka hoos maraa diiniyan ama noqon waaya qof diintiisa ay fiican tahay. Haddaba cabsiyahaas badan waxay keenayaan walwal tiro badan, walwalkaas oo waalidka ku kalifaysa inay bixiyaan awaamir badan, ciqaab badan, diidmo badan, intaasoo weli ay kaga gol leeyihiin yaysan kaa farabaxsanin ilmihii ama wixii uga cabsanaysa yaysan noqonin, ama inuu waalidkii ka cararayo in uu dareemo inuu ku fashilmay ilmihii oo korinayo. haddaba dhinac kale hadaa imaano ilmihii qaas ahaan markii 11 iyo wixii ka badan ay gaaraan ama teenage ay soo gaaraan waxay la soo bixi doonaan barasho ay rabi doonaan inay nafsadooda ay bartaan, inay rabi doonaan awoodooda iyo qaabka ay wax u fahmayaan si ka gadisan inay noqoto. Waxay rabi doonaan in adduunka ku arkaan afkaartooda iyo indhahooda iyo noocii ay noqoto. Marka waqtigaas waa waqtiga ugu daran ama dhibaatada ugu badan ee ka imaadaan waalidka iyo ilmihiisa, ama waalidkii oo isdhaho cunugii wuu ka weynaaday wuu kugu caasiyoobi rabaa, taasoo iyadana dagaalo badan sii keenayso. cunugiina oo isdhahayo waalidkaaga xornimo ma ku ogolo, khilaaf badan, judgmental badan, ama yani laakiin la dhaho qof xunaa noqotay, waa xumaatay, waa lagugu soo daalay, sidii laga rabo ma noqonin, aabbahay ma ifahmayo, hooyaday ma ifahmayso, waxyaabo badan oo in qaarna lisku dhaho qaarna qof walba oo goonidiisa uga fikiro. haddaba su-aasha idin weydiinaya maxay tahay, barbaleemkaas sidee lagu xalin karaa? waa mid la xalin karo, laakiin waa mid barasho gooni ay faham gooni u baahan. waxaan rabaa inaan jeclaan lahaa inay la wadaagtiin waxyaabaha lagu xalin karo barbaleemadaas. waxaan rajeynayaa inaa wax iga fahanteen. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. halkani waa xarunta Carefesol, xaruntii ugu horeysay ee nooceeda ah ee lagula tacaalo dadka qabatiimay isticmaalka maanduuriyaha lagana hirgeliyo Soomaaliya. halkani ma aha xabsi ama goob lagu jirdilo dhibanaha, ee waa goob uu ka helayo dib u kabasho dhameystiran. waxaan sidoo kale u sameynaa bukaanka wacyigelin nafeed, tababaro xirfadeed, la talin caafimaad iyo ka dhaqista qabitinka maanduuriyaha. Carefesol, saaxiibka dhibanaha. wixii faahfaahin waxaad nagala soo xiriiri kartaan taleefoonnada shaashada inkaga muuqda.